وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله سبحانه وتعالى وحو نظري إذا نودك تونان لهين فدنة الدنيا هي شيطانك خيانته. موضوع عن دراسة كسمين إن أنا وحو نقول يا سيدا غربي الله شيء يا آياتك لقى قرانا يو دكتونا شذا لقى دكتونا استشانك هي في النويد الدنيا هي فكتوميد الدنيا تجيسة لقى نجي استمرك حق آخرها أرنك أصدقاء إن يستجدون. ربي سبحانه وتعالى كتابك سمنزل كومحكم كوحو كويري: يا أيها الناس إن وعد الله حق وارضوا يبوها إلهي وحا الله يبوهي أو بلن قادي ووحق أوسوغا وسيد ربي يبوهي أي أدعيان ونائمان دونا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ربي سبحانه وتعالى وحو يري ييسن أن لشأ الدنيا إذن كدين وأهكم مسؤوليننا آخرتنا هو قد جيسننا. الله سبحانه وتعالى يوسن إذن كدين المسك وحكدية أو صيدانك وفك مسلم كوحا لدونا يا الدنيا إنه سندار كدغا إنه سن كتوبين صيدانك وركيس إنه سن أقبلين حق إنه سن قرم مرين دينت إسلامك إنه سن كتغين. رب إن لقبقى والله ما مارمان حق إن لا إلاليا والله ما مارمان آخرة ما ننتهي إن لو ديار قروبانا وأرن لقما مارمان ربي وحو نوع عدي شيدانكو إنو عدو نويهي مركا ربي وحو نويري شيدانكو عدو أيو إذن يهي عدو كياسة شيدانك إيا كوحد الرعضة نارت السعير اللي إلى أيدتك إذا نظنيان عذابك اللي أيها لسيحينيا تركو لنا نارت أيها فينا نيسا. هذا بأخي المسلم وأخت المسلمة ربك إذن خلقيك بغضة oo saydaanka cadowka dhigta oo diinta alla ilaaliya oo macaasida ka durga oo saydaanka raali garaynina ee rabbiga idin khalqay raali gareeya oo diinta si dhawa u ilaaliya. arrinka asaga in la fuliyo waa lagama maarmaan, waayo rabbi wuxuu yidhi: inna ash-shaytaana lakum caduwwun fattakhiduuhu caduwwa innamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi as-saciir. war ninka saydaanka la yidhaah cadow ayuu idin yahay, cara alla ayuuna idin shaqaynayaa, wax idin gaarsiiya inuu idin amro ayuu ku dadaalayaa. war cadow ka dhigta oo naseexaha ka qaadanina oo dibindaabyadiisa ha ku raali noqonina oo waxuu idin qurxinaya ha ka yeelinina. saydaanka iyo axsaabta isaga raacda naarta saciiro la yidhaah ayaa xaaba looga dhigaa. haddaba walaalayaal, jirkeennu saciira ma xamili karo, cadaabka allana uma dul qaadan karno. ee rabbi ha laga bago oo diinta ha la ilaaliyo oo cadaabka ha laga tago, sidaan lagu geli cadaabka si lagu galo dhan ha laga durgo oo adduunku yowsan nasiranin. war adduunku waa daar faaniya oo aan lagu waaraynin, maalmo yar ayaa la joogayaa. ee axad walbow rabbigaa ka baq oo diinta ilaali oo nabigaaga ku dayo sala allahu calayhi wasalam. saciira dadkeeda ayaa lagu darin ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, saciiro ma meel la aada ah mase waa makaan loo shaqaysto? shaydaansan ma axad la raalli gareeyaa? waa axad laga caraysiiyo oo dariiqiisa in la khilaafo mutaystay. rabbi ka baqda oo sharciga ilaaliya. dadka sharciga ilaaliyaa shaydaanka uma adeegaan, xaaraanta markay arkaan ma fududaystaan, waajibaadka ma layacaan, sunnadana kama ay tagaan, ee wanaagga ayay dhab u ilaaliyaan. ee diinta alla ilaaliya, aada liibaanteen adduunka iyo aakhirada labadaba. rabbi subxaanahu wa tacaala aayaadkaas aanu akrinay ee uu noogu xadeeyey shaydaanka cadownimadiisa iyo adduunyada inaan lagu kadsoomin. waxuu noo tusaalaynayey in aan adduunka ka dhiganno daar laga shaqaysto oo aan lagu sugnaanayn, ee aan u shaqaysano aakhirada. wuxuuna rabbina dareensiinayaa shaydaanku inuu yahay mid noo qurxinaya adduunyada dhaldhalaalkeeda, diinta inay dhib badan tahana na tusinaya. rabbi wuxuu yidhi: wazayana lahum ashaydaanu acmaalahum.
شيطانك أيا عمل كود أسينيي أو أقرحيي أو باطلك أي قرن كتصي طريق حقنا شيطانك وكحي صديدتك هذا ربك بغض سبحانه وتعالى أو حق إلهية الله سبحانه وتعالى وهو يري بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى waxaad doorateen nolosha adduunyada xayaatada adduunyada ee danii'ada ah oo liidata oo aan qiimaha lahayn ayaad doorateen aakhiro ayaa khayr badan ayada ayaa baaqi ahaansho badan meel loo shaqaysta ayadaa ah rabbi ka cabsada oo aakhirada doorta waa nolol lagu baaqi ahaanayo waa nolol loo aayayo waa meel aan laga soo laabanayn waa meel qof walbaa tegayo waa meel qofkii ciriiri kula kulma uusan ciriiriga ka baxayn waa meel qofkii raaxo kula kulma aan raaxada laga saarayn ayada doorta u shaqaysta adduunkana ka taga adduunku waa daar aan qiimo lahayn sidaas ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala bal iska day dadka maanta joogaa inay aakhiro doortaan amay u shaqeeyaane sida ay u badan yihiin waxay doorteen adduunyada dhaldhalaalkeeda sidee waxa lagu cunaa xaaraan baa loo baneeyey sidee baa shilin lagu helaa dad islaama ayaa loo dhibay loona dilay xayaatada adduunyada in la gartana dadka waxaad ku dareemaysaa waxay saacad walba u taagan yihiin qabyaaladda waxay saacad walba u taagan yihiin see shilin lagu helaa waxay saacad walba u taagan yihiin waxa carada rabbi lagu gaarayo bani aadamkana lagu raalli garaynayo wardadyahow dad islaama oo rabbigood yaqaano oo diinta alla ilaaliya noqda yaan xaqa la layicine allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi isagoo adduunka noo sheegaya arrintiisa waxay tahay innamaa haadihi alxayaatu addunyaa mataac wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar noloshaan adduunyadu waxay tahay oo kali ah waa mataac liidata oo maalma lagu raaxaystoo dhammaanaysa aakhirada ayaa daarta lagu sugnaanayo oo aan laga soo laabanayn ah ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala suuratu kaafir ayuu rabbi sidaa ku yidhi nolosha adduunyadu waa mataac iyo maalmo raaxo yar oo la joogo nolosha runtaa iyo daarta aan laga soo laabanayne loo aayayo waa daarta la yidhaha daarta aakhirada waa daarulqaraar haddaba akhi lmuslim wa ukhta almuslima adduunka waa adigoo ahaaday maanta berrina aan joogin aakhirada waa adigoo ahaaday weligaana aan ka suulaynin waxaa kugu wanaagsan kolka aakhirada waxa ku anfacaya inaad diyaarisid oo adduunka kan aadan daar ka dhigan ee diinta alle aad ku socotid ood macaasida iska daydid war rabbigiinka cabsada oo xagga ilaaliya war xubbiga adduunyada iyo aakhira halmaanka iska deeya war in badan haddii jirkiinu baahdo ama dhib soo gaaro adduunku inuusan daar raaxo ahayn ogaada oo haddaad cibaadaysanaysaan nicma inaysan idiin dhimanayn ogaada raaxada qofka muslimkaa waa ilaalinta salaada iyo hagaajinta soonka qofka muslimkaa cuntadiisa iyo qadadiisa iyo deganaantiisu waa akhriska qur'aanka alle iyo ku dhaqankiisa iyo dikriga allah iyo nabigiisa uu ku salliyo sala allahu calayhi wasalam iyo dacwada islaamka uu u shaqaynayo sidaas ayaa lagu garanayaa mu'miniinta ee rabbi ha laga baqo subxaanahu wa tacaala dadka islaamkaa ma ahan inay adduunyada daar ka dhigtaan ay ku mashquulaan war maxaad allah subxaanahu wa tacaala waajibaadkou idiin diray uga tagteen ood u layacdeen oo markaas ka gadaal aad ugu layacdeen waajibaadkii alla idiin diray adduunyada ou rabbi idiin ballan qaaday nafaqadiina waayo alla wuxuu yidhi wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo caddeeyey naf walba risqigeeda inuu isagu kafaalo qaaday wixii alla kuugu talagelay gafi maydid waxaan rabbi kuugu talagelinna helin maysid ee rabbigaa caabud oo adduunka daar ha ka dhiganin daar kuu noqon mayse ee u shaqayso aakhiradaadoo rabbigaa ka baqo war dhadhalaalka iyo raaxada adduunyada iska deeya war oon haddii uu idinku dhaco oonka ku sabra oo rabbigaa darti haddaad u oontid xawdka nabiga ayaad ka cabi doontaa salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh war rabbi markii dartii dhibaata idiin soo gaarta ku sabra qofka muslimkaa waa la imtixaanaa baahi baa lagu imtixaanaa cudur baa lagu imtixaanaa cadow baa lagu imtixaanaa intaasoo dhan wuu ku sabraa markuu ku sabrana riddo alle iyo jannaa loogu bedelaa adduunkuna waa daar aan ayadu qaymaba lahayn ee rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi alhaakum atakaasuru xataa zurtum lmaqaabir kalaa sawfa taclamuuna uma kalaa sawfa taclamuun
rabbi subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waxaa daacadii rabbi idinka mashquuliyey iyo wixii cadaabka alla idinka kori lahaa waxaa idinka mashquuliyey mukaasara waxbadsi adduunyo iyo ewlaad iyo tiro iyo dadku inay isu faanaan ilaa aad ka dhimateen oo qubuurta laydinku duugay ilaa aad ka dhimateen oo qubuurta laydinku duugay waxaa idin mashquuliyoo diintii idinka xigsaday oo wixii cadaab alle aad uga badbaadi lahaydeen aad la ilowdeen waa tafaakur takaasur bidunya takaasur bilamwaal waalawlaad weeye ee rabbi ka baqda subxaanahu watacaala markaas ka gadaal ayuu rabbi naga sajriyey subxaanahu watacaala wuxuuna yidhi waxaa xaqa oo sugan oo ay runtu tahay inaad ciribta xumada ogaan doontaan faanka adduunyada mar dambe aad ogaan doontaan marka mawdku idinku soo dego oo xayaatada adduunka ka quusataan oo kurbadu meel walba idinka daboosho oo meel walba shallay idinkaga yimaado ood amaalmarintiina indhaha saartaan maalintaasaad xaqiiqada ogaan doontaan ee dad yow islaamkaa rabbi ka cabsada rabbi ka baqda subxaanahu watacaala adduunku daar ma ahan lagu sugnaanayo ee ha ka dhiganina daar waxaad ka dhigataan meel laga shaqaysta ee laga socdo war addunyaa fa inahaa daaru nafaad war adduunyadu waa tegidda daarteeda waarisiina maxalkeed ma ahan waa markab lagu gudbo ee mansil lagu farxa ma ahan waa meel la yimaado ee laga tage meel lagu waara ma ahan sidaa darteed dadka baraarugay oo khayr kale oo caqliga badan waa dadka zuhaada ah ee daacada alle isu taagay war addoommada allow adduunka dalaaqa oo fidnadiisa ka cabsada oo camal saalixa markabka dhigta aad adduunka dhibkiisa uga baxdeen allana hay idiin gargaaro o aad jannadiisa gaarteene war hala dadaalo allaha laga baqo subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi oo ku yidhi suuradda la yidhaha suuratu lmunaafiquun aayad ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum alkhaasiruun war dadka islaamka oo aayaddaa eega war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabiga moxamed ee rumeeyey sala allahu calayhi wasalam yaysan idinka mashquulinin xoolaha iyo owlaadiina yaysan ilaahay digrigiisa iyo daacada alleh iyo ilaalinta diinta idinka mashquulinin dadkii adduunka uga mashquula ilaah diintiisa ama ilmahooda ku mashquula ee shilisee lagu raadiyaa waajibaadkii alla ku layaca oo diinta ilaali kari waaya dadka khasaaray oo dulloobay oo cadaabka alla gelayaa waa kuwa oo kali ah ayuu rabbi yidhi subxaanahu watacaala waxay leeyihiin cadaab waxay leeyihiin caro alle waxay leeyihiin masaa'ib oo dhan sidaas ayuu rabbi noo caddeeyey subxaanahu watacaala war qof alla qofkii ilaahay diintiisa uga mashquula adduunya raadis iyo ilmaan korinayey ee wixii rabbi u diray layaca ama wixii rabbi ka reebay dhex gala saad lacag ku heshaana u dhex gala wou khasaaray adduunka iyo aakhiradaba nolosha wuu ku khasaaray waryaanan khasaarin waryaanan dulloobin waryaan saqaro naareed idin feenanin waryaan samhariiro laydin seexinin waryaan saadkiinu xaaraan noqonin wa rabbigiin ka baqdoo saad qaata oo u saad qaata xagga aakhirada oo saadkiina ka dhigta cabsida alle waryaan dhibaato iyo kurba idin hareeraynin ee rabbiga kariimkaasi badhaba uga baga oo adduunku kan waa meel dulli ah oo danii ah oo hoosayta ee waxaa ka sharaf iyo wanaag ka hela dadka daliilku ilaaliya oo diinta alle u gargaaro oo daa'imkooda ka dambeeya rabbi ka baqoo xagga ilaaliya rabbi ka baqoo xagga ilaaliya rabbi ka baqoo adduunka ka soo jeesta rabbi ka baqoo aakhirada yaan la iloobin war yaan aakhirada la iloobin war adduunkii waa ayaa la jeclaado aakhirada waa la iloobin war musiiba oo dhan waxay dadka ugu timaadaa inay dadku masiirkooda iyo aayahooda iloobaan war aayaheennii waan ilownay aayaheennu waa xagga aakhirada waa la garan waayo waa la iloobay adduunyada waxaa addunyaa loogu bixiya waa mid dani ah ee hoosayda dadkeeduna way hooseeyaan inta ka daba carartaana waa kuwaan qaymo lahayn war muslimiintaw arka xaqiiqada adduunyada fahma rabbi gargaarkiisa ayaad gaari doontaan haddaad wanaaga ku dadaashaane allah subxaanahu watacaala ayaanu ka dalbanaynaa inuuna garansiiyo qaymaha adduunyada si aan uga saal qaadano nan daar uga dhigan ayada allah subxaanahu watacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi aayado kale almaalu waalbanuuna ziinatu alxayaati addunya waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika sawaaban wa khayrun amala war waxaad ogaanaysaan xoolaha iyo ilmaha oo wiilasha loogu jeceliyo ay yihiin waa nolosha iyo dhaldhalaalka iyo birbirka adduunyada kuwa baaqiyaatu saalixaadka ah oo salaadaha shanta ah iyo adkaarta iyo akhriska qur-aanka iyo ku dhaqanka diinta arrinkaas ayaa khayr badan alla agtiisa xagga sawaabka
wax laydidiishadoo laysku halleeyana kuwaas ayaa ugu wanaagsan. war qofka muslimkaa wax kayd laga dhigto waxa ugu fadliga badan cabsida alle ee lacagta ma ahan. waxa ugu wanaag badan diinta alloo la ilaaliyo iyo adduunkoo laga jeesto ee rabbigiinka baqda subxaanahu wa tacaala. haddaba xoolaha iyo ilmuhu waa birbirka adduunyadoo way dhammaanayaan. waxay qiimo leeyihiin ma lahan oo maantay joogayaan berritana way dhammaanayaan ee rabbi ka baqda subxaanahu wa tacaala. kuwa baaqi ahaanaya baaqiyaatu saalixaadka ayaa alle agtiisa ku khayr badan aya xagga amaalmarinta iyo xagga wanaajinta iyo dhinac walbaba. baaqiyaatu saalixaad waxaa la yidhaha cibaadada diinta islaamku ay kuu dirto idil qof walbo. baaqiyaatu saalixaad kuwaasaa la wada oranaya. muslimiinta ayagoo ku fasireen in badan 5 salaadood iyo subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar. haddana waajibaadka oo dhan iyo wax kastoo rabbi loogu dhawaado halkaa bay soo gelayaan. warabbika baqda war kayd samaysa idin anfacaa oo aan bangiga idin yaalla aan la dhacaynin oo aan riba idinka dul fuulaynin oo wixii la idinkugu kordhaya ay xalaal yihiin. war kaydka noocaasa oon hallaabayn oon isbedelayn oo aan marnaba qiima dhacin waa cibaadada alle ku dadaalo. adduunka ha ka dhiganina meel aad ku nagaanaysaan. adduunka meel lagu nagaanayo maahane. war alla maa ka baqdaan oo xagga ilaalisaan. war muslimiinta oo xaggeed indhaha geysateen waa wanaagga ujeedaan. aayadaasaanu akrinay suuratulkahf ayay ku jirtaa. rabbi subxaanahu wa tacaala waxau yidhi iclamuu anama alxayaatu ddunyaa lacibun walahwn waziinatun watafaakurun baynakum watakaafurun fi lamwaali waalawlaad. war waxaad ogaataan nolosha adduunyadu inay tahay oo kali ah wax lagu cayaaro ilmuhu ku cayaaraan iyo wax lahwi ah oo dadka garmadowga ay ku daahaan. waa xaasaabo garmadow iyo ciyaalka yaryarka cayaartooda adduunyadu. adduunyadu waa ziine iyo dhaldhalaal maanta muuqanayoon berri jirin. adduunyadu waa tafaakur ummadda baynkooda ahaatood isugu faanaysaan iyo badsi xagga xoolaha iyo xagga ilmaha oo qof walba qofka kale oo leeyahay anaa kaa lacag badan kaa awlaad badan kaa guryo qurxoon kaa gawaari dhaadheer kaa kidaasaas oo kaa qabiil wanaagsan. qof walba uu sidaa odhanayo. adduunka oo dhan waxa yaallaa waa sidaa keliya alla yidhi subxaana wa tacaala. rabbi misaal buu ka bixiyo waxau yidhi adduunyadu waxay lamid tahay kamahali kaysin acjaba alkufaara nabaatuh uma yahiiju fataraahu musfaraa uma yakunu xudaama. adduunku waxau la mid yahow alla yidhi madar oo kale weeye. madarkaasoo dadka beeralayda ay nabaadkiisa iyo waxa ka baxaya ay la cajabeen oo ay la yaabeen oo ay la wareereen aad ula yaabeen. markaa ka gadaal nabaadkiisa u quruxda badnaa oo nabaadkii ahaaday mid engegay oo isla markaas aad arkaysa inuu boor yeesho isbedelay. daqiiqada ka gadaal haddana burbur iyo hashiim dabayluhu tuurtuurayaa noqday. waata riwaayad kale aayad kale alla ku yidhi fa asbaxa hashiiman tadru'uhu riyaax. burbur dabayluhu tuurtuurayaan buu noqday. eber bow baxay. waa beerta hadda cagaareed. waa dhulkii hadda quruxda badnaa. waa dhulkii roobka badana ku di'ay. sidaas ayay adduunka lamid yahay. maanta waa ku dhalaalaysaa daaro iyo cunto iyo wax walba isu kaa dul saaran. berritana waaba adigoon joogin ama wax alla waxaad haysata ilaahay gubay subxaana wa tacaala. imise taajir baa habeenkii seexatay ayagoo lacagtooda meel la dhigay lala ay malyan dheer yihiin waaguna u baryay silin ay ku quracdaan ayagoon haysanin oo wax alla waxay lahaayeen oo rabbi dab qabadsiiyey. imise faqiir ayaa waagu u baryay ama habeenkii seexatay waaguna u soo baryoo soo toosay ama qorraxda u dhacda ayagoo malyan dheera oo meel ay kala geeyaan la. adduunku sidaa weeyaanoo waa geedka labadiisa hoos. axad ou gacantiisa ku jirayaa ma jiro. midka uu gacantiisa ka maqnaanayaa inuu ka maqnaan doonana lama oga. meel laysku halleeya ma ahan. meel uu qofku niyadda ugu sheekeeya ma ahan. alla yidhaha lacag baa meel kuu taalla shabaabkaadoo buuxdaad ka weynaysaa ama way gubanaysaa ama waa lagaa xoogayaa ama musiibo kale oon baa lagugu sallidayaa. meel aad dhigta adigoola ayaa meel ay ka baxdaan la weynayaa. imisaa gaari cad magaalada ku maraysay oo adigoo lugaynaya gurgoodii kusoo laabto daqiiqada oo gaarigoodii ku gubtay ama u qallimay. imisaa waddada martay ayagoo dhaqaalaha meel ay geeyaan la naftuna aysan la gaarin dariiqa ayagu ay doonayeen inay tagaan. war adduunku waa meel noocaasa ee rabbi ka baqday subxaana wa tacaala. adduunku waa meel burburkaasu ka jiro. waa daar aan sugnaanayn oo aan ku nagaanayn oo aan meeshaad yani ku ogeed loogu imaanayn. war waagu markuu soo yani baryo qoraxda soo baxdo iyo markay qoraxdu dhacdo adduunku isku si ma ahan. farxad baa laga yaabaa in waagu kuugu baryo iyo dhaqaalo iyo wanaag qoraxduna ay tiiraanyo iyo dhibaato kuugu dhacdo.
waxaa laga yaabaa duhurku inuu kuugu galo adigoo tiiraanyaysan oo dhibaata ku haysato casirkana la gaaro adoo faraxsan oo dhibkiio dhan ba kaa tego waxaad ku farxda gacmaha ku dhigay qoraxda haddana waxay kuu dhacaysaa adoo tiiraanyaysan oo meel xun ku nool adduunku waa sidaa marka daartan adduunyada waa daar ayadoo dhama saacad walba isbedelaysay siday isu bedelaysaa waxay kutusaysaa inaysan meel lagu sugnaan doono oo la joogi doono ahayn haddaba walaalayaal rabbi ka baqda oo kasaar qaata oo adduunkan daar ha ka dhiganina oo burburkiisa u jeego xagga aakhirada u shaqaysta taas ayaa la doonayaa in la garto rabbi waxau yihi subxaanahu watacaala wa fi laakhirati cadaabun shadiidun wa makfiratun min allahi wa ridwan aakhirada waxaa ahaaday dhexdeeda cadaab adag oo qofka lagu cadaabo jirkiisa la baabi'inayo ay musiiba ku dhacayso ayaa aakhirada ahaaday aakhirada cadaab shadiida wuxuu u yahay axad walbee amarka alla khilaafee daarta adduunyada ka dhigta daarta oo ku sugnaan doono dariiqii nabiga iloogo xooggiisa iyo xoolihiisa xaqa ugu shaqay waaye qof kastoo noocaasa cadaab shadiida ayaa aakhira ugu sugan oo aakhiro cadaabkaa shadiidka ayaa ahaaday dembi dhaaf xagga rabbi ka ahaaday iyo ridwaan ayaa aakhirada ku sugan waxaana helaya kuwa nusuusta ilaaliya oo diinta dhab ugu dhaqma waxay heli doonaan dadkaasu makfira iyo ridwaan iyo naxariis xagga rabbi ka timid walaalayaal naxariis alle haddaad doonaysaan dembi dhaaf haddaad rabtaan gargaar alle haddaad rabtaan diinta alla ilaaliya oo xaaraanta ka taga oo xaqa ku socda war adduunka waxaa daar ka dhigta qofkaan aakhiro daar ku lahayn war waxaa kulmiya qofkaan caqli lahayn war waxaa ku dadaala qofkaan rabbigii ku kalsoonayn war waxaa adduunka ku farxa axadaan farxad aakhirada rajo ka qabin adduunku meel lagu farxa ma ahan waxa adduunka yaalloo lagu farxo waxa ugu qiimo badan qof muslima oo walaalkaa adigoo la kulma farxadda intaas ayaa ugu fiican adduunka joogta farxad kale adduunyadu ma lahan iyo adoo waajibaadka alla guta ilaa waajibaadka alla gudashadiisu waaba noloshaadii dhammaa laakiin waxa lagu siiyey iyo waxaad aragtay iyo dhaqaalo aad hesho adduunka yani jooga in lagu farxa ma ahan waxa qofka muslimkaa inuu ku farxaa ay laa'iqa u tahay xarab diineed markuu u kordhow cibaadada alle la yimaado farxaddu waa sidaa waxaa kuu soo raaca adigoo qof walaalkaa oo muslima oo kaa maqnay la kulmay oo wejigiisa arkay waad ku farxaysaa markaad qof walaalkaa dhib ka ogeed ee dhibka laga qaado waad ku farxaysaa markuu helo wanaag waad ku farxaysaa wax laga tiiraanyoodana waxa ah ilaahay diintiisa in wax loo geysto ama dad ilaahay diintiisa ku soconaya wax loo geysto laakiin inta kula dhalatay iyo inta ku dhashay hadday gubtaan xoolahaagoo dhan habeen madow hadday gubtaan adduunyo lee weeyaana wax aad ka tiiraanyootayaysa noqonin qaymo malahane qofka muslimkaa waxaad ugu farxaysaa cibaado ayay farxadiisa ku noqonaysaa ilaah baana kugu janaynaya maxaa yeelay alla darti haddaad qof u jeclaato xawdka ayaa lagu ballan qaaday iyo in carshiga alla kuu harayo subxaanahu watacaala war dadaala oo diinta alla ilaaliya oo waxaa lagu socdaa ma wanaagsane dadyow ka tanaasula xaaraanta oo usoo laabta waajibaadka oo adduunka kan daar ha ka dhiganina daar idiin noqon maysee arrinkaa in la fuliyo aad baa loogu baahan yahy oo aan muslimiin rasmiya noqono aakhirada cadaab shadiida ayaa ahaaday iyo dembi dhaaf iyo ridwaan xagga rabbi ka ahaaday alla waxau yihi subxaanahu watacaala wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur xayaatada adduunyadu ma ahan wax kale ilaa kadada mataacdeeda mooyaane xayaatada adduunyadu wax kale ma ahan ilaa waa kadada mataacadeeda waa wax yar oo lagu kadsoomo oo aan qaymo lahayn sidaa darteed axad walboo muslimow waa mataacu lquruur waa mataac lagu raaxaysto gelli oo la qadeeyo mar lagu quraacdo qoraxdu markay dhacdana laga baahan yahay oo laga tiiraanyoonayo dhibka ugu noqonayso sidaa darteed mataacda adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda yow idin siranin gaari cad yow ku siranin guri qurxoon yow ku siranin marasuuqa lagu iibiyayay ku siranin axad lacag dambiila kuwada iyo jawaana haddaad aragtid raaxo iyo nicmad inuu gacanta ku haysto hamoodin isagaa kaa dhibaato badan cadaab iyo dhibaatana gacanta ku haya ee rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala oo xagga sidau yahay ha loo ilaaliyo oo xaaraanta ha laysaga tago suurat lxadiid ayuu rabbi sidaa ku yihi subxaanahu watacaala war xaggee bay aadeen dadkii muslimiinta ahaa oo adduunka markay xoola ka helaan aakhirada ku iibsan jiray oo u shaqaysan jiray jannada alle oo kali ah war dadkaasu xaggay ka dhaceen war muslimiinto ma dadaashaan oo diinta ha la ilaalisaan allah subxaanahu watacaala waxau yihi wamaa hadihi alxayaatu اdunyaa ilaa lahwun walacib waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaanu law kaanuu yaclamuun suuratu axsiba bal hadalka rabbi u fiirso xayaatada adduunyadu ma ahan wax kale ilaa waa wax ay odayaashu ku daahaan dhalinyaradana ay ku cayaaraan oy ku mashquulaan daarta aakhirada ayadaa nolosha runta ah haddaad tihiin dad wax garanaya oo caqli ku jiro oo qayma leh oo wax fahmaya oo maskaxdoodu ay xaqa u duleesho oo rabbi inuu khalqay garanaya haddaad tihiin daarta runta ah ee nolosha runta ay jirto waa midda aakhirada u shaqaysta ayada waxaa adduunka loo kala cararayaa maxaa lagu noolaadaa weeye
qado qofkay ka maqnaato ma samri karo. haddaba qadada aakhirada hadday ku gaftaadan sabri karin, waayo adduunka 24 saac iyo ka badan haddaad qasanaato waxaad barijo ka qabtaa inaad cunto maalin heshid. laakiin aakhirada hadday qatooyo kuugu bilaabato, qatooyadaasadu weligaa ku jiraysa ilaa waa jahanabe. hadday naxariis kuugu bilaabato waa jannada allo jannatu cadn iyo meel wanaagsan weligaa ka bixi maydido ayadaad ku jiraysa. war taasaa wax loo shaqaysta leh. war walaalayaal ilaah ka cabsada, war diinta tan ilaaliya oo xagga ha ka teginina. nolosha aakhirada, nolosha runta ayada qofkii caqlilow ayada u shaqayso ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waa nolosha runta oo lama huraankaa taa weeye. yani xaqiiqada marka laleeyahay wa ina daar alaakhirata lahiya xayawaan, xayaatada xaqiiqada ah oo aan geeridu dhexdeeda ku jirin oo aan marnaba la dhimanayn ee weligeed lagu sugnaanayo waa nolosha aakhirada. nolosha aakhirada wey waa lahiya alxayawaan, waa nolosha runta ah, waa nolosha biyo kaba dhibcaanka ah. sidaasuu alla leeyahy subxaana wa tacaala oo dadkii garan lahaa akhi lmuslim wa ukhta lmuslima nusuusta aanu soo akrinay macnaheeda maad eegtid. miyaadan weligaa kitaabka alla akrin oon aayadahaasu ku soo marin? hadday ku soo mareen ma qalbigaagaa meel ku maqnaa, mase waxa aad sheegaysay macnahooda ayaadan garanaynin, mase waxaadan ogeyn qur-aanku inuu yahay mid xuruuftiisa la dabaqo axkaamtiisa la fuliyo, mase waxaa u haysataaba qur-aanka alfaadiisa qofka jajabiyaa dhaqankiisana ka durugsan islaamnimana iska sheegtaa inuu janno iska gelayo. ma saasay kula tahay? rabbiga ku qalday maa ka cabsatid, diinta alle maa ilaalisid, xubbiga adduunyada maa iska daydid, laguma janno galee. waxaa janno lagu galaa qofku inuu aakhirada jeclaado, taas ayaana lagu liibaana. war jeclaada aakhirada oo rabbi ka baqda subxaana wa tacaala. allah wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqat lmawt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yawma alqiyaama faman zuxzixa can innaari waudkila aljannata faqad faaz wama alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lquruur. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi naf la arka kulligeed tii mawdka iyo geerida dhadhaminaysa weeye. waxaana la idin oofinayaa waxa aad la timadeen abaalmarintooda maalinta qiyaamada. ajriyaalkiinii waxaad shaqaysateen, khayr hadday ahaayeen hadday shar ahaayeen, axad walbaa wuxuu la yimid abaalmarintooda ayaa loo oofin oo gacmaha laga saarin. axadkii naarta laga durjiyo oo jannada alle la geliyo kaasi wou liibaanay, imtixaanka wou ku baasay, wouna darajoobay. xayaatada adduunyadu wax ay tahay ma ahan ilaa waa mataac lagu kadsoomo qayma lahayn ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala. waa mataacu lquruur, waa mataacu lquruur, waa mataac xun oo lagu kadsoomo waxay tahay la arkin. sidaa darteed qofkii naarta laga durjiyo oo jannada la geliyo oo rabbi naxariistiisa helaa, imtixaanka uu ku baasay, kaas ayaa darajoobay, kaas ayaa dulliga ka baxay, kaas ayaa gargaar alla haystee. muslimiinta u dadaala oo rabbigiinka baqda oo adduunka ha ka dhiganina meel lagu sugnaanayo, hana is oranina imtixaan lagu baaso waxa ugu fiican kan iskuullada iyo jaamacadaha. war qayma ma lahan oo shahaadada maanta dadku ay ordayaan oo loo cararaya waa qaanuun shaydaan. ee waxa qaymaha leh imtixaanka rabbigii qofka ku baasa oo jannada alla gala, kaas ayaa qayma leh. rabbiga uu wada saralow adiga ayaan ku weydiisanee nagu dar kuwa imtixaanka aakhirada ku baasa oo jannadaada galo cadaabkaaga ka baxa oo gargaar weyn gacanta ku dhiga. war muslimiinta u dadaala oo diinta islaamka ilaaliya. waryaan xaqa la layicin, waryaan xaaraanta la banaysanin, waryaan sunnada nabiga lagu cayaarin sala allahu calayhi wasalam, waryaan adduunka la jeclaanin, waryaan naarta jamhariire la yidhaah boos laga samaysanin dadow. ee diinta alla ilaaliya, adduunka iyo aakhiradaba aada liibaanteene. nolosha adduunyadu waa mataacu lquruur ayuu allah yidhi subxaana wa tacaala. war qur-aanka inta aayadood ee ku soo aroortay adduunka dhaleecayntiisa arka iyo sidau alla ugu tilmaamayo mar kastaba. nolosha adduunyadu waa nolol aan qaymo lahayn oo lagu kadsoomayo oo aan la joogayn oo aan lagu waarayn. ee mar walba nala ku leeyahay war aakhirada u diyaar garoobo ayada u shaqaysta. nolosha aanan hurayna waa midda aakhiradeed. waxaad adduunyada ku noqotaa ayuu yidhi sidii adigoo musaafira oo kale adduunka ku ahaw ama waddada goynaya. sidaas ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam. adduunka ha ka dhiganin daar aad joogayso, ee adduunka qariib ku noqo. qofka socdaalkaa cuntadau cuni lahay bis ayuu u diyaarsadaa, ee iskuma halleeyo. ee waxaad yeelaysaan ayuu yidhi ou rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam, qof socdaala oo kale adduunka ku noqo. shaksi walba ayuu hadalkaa nabigu u yidhi. cabdullahi bin cumar baana ka wariyey. ama nin wadda goynaya, qofka waddada goynaya reedahay unta iska eeg ayuu dhaafaa. marka adduunka reedaha iska eeg, inaad dhaafi kartid iyo in kale eeg, saad nabadgelyo ugu gudubtana ka shaqeeyo daacadaha la ilaali, ilaa meel la joogaya maahane. sidaa darteed cabdullaahi bin cumar wuxuu ahaa mid ku gawra marka aad garabaysatid inaad waa berigii gaari doonto nafta ha ugu sheekayni. idaa amsayta falaa tantadiri sabax buu yidhi.
haddaad galabnimada gaartid subaxnimo wax la yidhaha ha sugin hana is odhanin waagu waa ku dhayi doonaa waagoon bari nafta inay kaa baxda dhicin kartee wa idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa haddaad galabaysatid ood galabnimada gaartidna ha ku fekerin in qoraxdu kuu soo bixi doontood waa berisanaysid wakud min sixatika limaradika wa min xayaatika limawtika caafimaadka intaad qabtid daacada alla ku dadaal oo aan jiradu kugu imaanin oo caafimaadkaaga ugu shaqaysa jirada awqaadeeda xayaatadu intay kugu jirta ku dadaal daacada alle oo aan nafta lagaa qaadin xadiidka bukhaari baa qoray war haddaba walaalayaal rabbi ka baqday subxaanahu wa tacaala war qofka muslimkaa waa inuu noqdaa qof diinta alle ku socda waa inuu noqdaa qof xagga si dhaba u ilaaliya adduunka waa inaad ku noqotaa qariib musaafir ilaa musaafir baa tahay adduunku daar lagu waaraya ma ahan maha la joogi doona ma ahan sidaa darteed axad walbo musaafir baatay ee raashinkii aad xagga ku cuni laheed samayso waxaa dadka u caqli daran oo u aqoon daran qofka inuu dhimanayo og wamaca daalika adduunka daar ka dhigtay daar kale inay jirtana aan u malaynaynba ee ayada kaliya ka daba cararaya aad ayuu u caqli daran yahay allaha laga bogo subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wallahi ma alfaqra akhshaa calaykum walakin akhshaa an tubsada calaykum addunya kamaa busidat calaa man kana qablakum fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa halakatum rabbiga idoo ikhalqaan ku dhaartay ayuu yihi sala allahu alayh wasalam faqiirnimo dushiina ma uga baqanayo faqri ma idinkaga cabsanayo ee waxaan idinkaga baqanayaa adduunka in la idiin fidiyo oo dhaldhalaalkiisa iyo muuqaalkiisa meel walba la idiin soo dhigo xooluhu idinku bataan taas ayaan idinkaga baqanayaa umadihii adinka idinka horreeyey sidii loogu fidiyo oo kale oo aad markaas ku tarsantaan oo qof walba yidhaha soo qabo guri dhis gaari gad xagga bedel alaabta bedel sariirta bedel dharka bedel xagga ka orad sidaa ay noqoto oo adduunyadu idin halaagto siday u halaagtay dadkii idinka horreeya buu yihi sala allahu alayh wasalam macnaha halaagiinay sabab u noqonaysaa ee rabbi baa halaaga keenaya subxaana wa tacaala hadalka rasuulka cajaa'ibtiisa arka xadiidka bukhaariya muslim baa ku sugan yahay adduunka miyaan maanta dadka loo fidin oo aan qada iyo quraac iyo case cuntada loo qaybin oo aan meel walba in macmacaan laga cuno la rabin oo qof walba uusan ku fakerayn seed tar ku dhisataa seed gaari ku wadataa seed hebel uga daba tagtaa seed dharka moodada cusub u soo iibsataa seed sariirihii hore isaga bedeshaa oo kuwa cusub oo miraayada ah oo soconaya oo ay ku rakiban yihiin qaboojiyayaal iyo waxyaalo kale aad u samaysataa war rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala hadalkii oo rasuulku sheegaa nagu xaqiiqobay sala allahu alayh wasalam wallahana faqri idinkaga baqanayn ee waxaan ka baqan buu yihi adduunka in la idiin fidiyo oo aad ku tartantaan say ugu tartameen kuwii hore oy adduunyadu idin halaagto say u halaagtay kuwii hore waxa maanta nala ku halaagayaa waa coola raadin waxa maanta loo tartamayaa oo laysu dhammaynayaa oo qofba qofku dilayaa waa coola raadin waa sharaf raadin dadkana maha maanta haya xoolo la-aan maahane iimaankiibau rabbi ka qaaday muslimiintu 48 saac inta qadaan ayay joogi jireen calooshay dhagax ku xihan jireen baahiyo ayay ragga gabal sara jooga uga dhici jireen indhahooda ayaa madoogaan jiray daacada alle kama cajisi jirin rabbigoodna kama eed sheegan jirin ee arrintaas ayadaa raalli bay ku ahaayeen maanta dadka joogaa sidaa ma yihin waa cajaa'ib maya abu hurayra radia allahu canhu sida xadiis ayda caddaynaya muxuu yihi waxaan ku dhacaya masaajidka meel kamida baahi aawadeed markaasaa dadka reer baadiya isku kaytaagayeen ayagoo u haysta inaan waalanahay wallahi baan ku dhaartay maabii min junuun bu wax jinni la yidhaha iguma sugnayn waxa igu sugnaa baahi keliya ay ahaayeen sidaa dadka yeelaya diinta allay difaacayeen safka horey ku dukanayeen daacada allana dad ka cajisa ma ahayn walaalayaal alla ka baqda subxaana wa tacaala war qof walba wuxuu doonayaa cuntada saw raba inuu u helo cabidda saw raba inuu u helo qudaarta saw raba inuu u helo hilibka saw raba inuu u helo war waxa kale nolol ma ahan ee nolosha aakhirada u shaqayso diinta alla ku socda looma baana inaan siyaalaha gabal u fakerno waa xadiis maanta lagu sifaysan yahay oo caalamka ugu sifooday waayo rasuulka alle sida u cadeeyey sala allahu alayh wasalam dadkii fakri ma hayo wamaca daalika 24 saac waxaa laleeyahay nafaqadii balaayana haysato cunto la cunaa lala-yahay haye mana lagu hayo dadka hadda jooga amase haddii la helo waxay noqonayaan afraad jirta meelo yani aan dad degan la arag sida meelaha oo la yidhaha ama baadiyaha oo kale ma lagu hayo dad calooshooda dhagaxya ku xiranaya bal waxaa laga xun yahay 24 saac gudahooda haddaan cunto la cunin war muslimiinta caalamka lagu dhibayo sooma ogidin inay ilmahooda iyo haweenkoodii majaaco u laadeen oo caalamka dadka ka dagaalamaya oo meelaha islaamka ku noolyahay oo diinta ilaahay loo cadaadinayo baahidaa lagu cadaadiya
waxaa lagu xidha meelo koranta ku jirto waxa oo lagu gubayo waxaa laysku daya ay baahan in meel lagula xidho way u dulqaataan way ku sabraan rabbi baana badbaadiya diinta alle ayadoo lagu dhibayo haddii dhibaata ku soo gaarto ku dhimatana shahiid baatay adduunkana awalan lagu noolaanayn ee walaalayaal rabbi ka baqda oo diinta ilaaliya oo kolkii 100 shilin haysto kaan haysan oo walaalkaa la qaysto oo kii kun meel u yaallow dhowr walaalaha la qaysto oo kii qadada heli karow dhowr walaalaha u yar oo ha kula qadeeye war islaamku saasan buu ogolaa war diintu saasan bay noo sheegaysaa war xaggee laga arkay dad muslimiina oo odhanaya muwaxidiin baanay oo odhanaya tawxiid baan garanay oo odhanaya 100% islaam baanay oo shilinka darsi ku dagaalamaya oo adduunka ku tartamaya oo ayagu isxariirinayn oo qofka baahan ka warhaynin ee axad walba oo yiriyaan shilinku waa ku soo galaya kaabixin war alla ka baqay subxaanahu wa tacaala sidaa laguma ogeyn muslimiinta rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina addunyaa xulwatun khadira wa ina allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun adduunyadu waa mid macaan oo cagaaran macaanka carabkaa jecel macaanka carabkaa jecel cagaarka indhahaa jecel adduunku waa macaan yahay waana cagaaran yahay rabbina khaliif bow idinkaga yeelayaa waana eegayaa saad u camal fashaan iyo waxaad adinku samaydaan fattaquu dunyaa wataquu nisaa war adduunka ka baqda oo aan dumarka ka baqa finadooda ayuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka muslim baa soo saaray waxau rasuulku noo cadeeyey adduunku inuu macaan yahay cagaaran yahana rabbina ou khaliif nooga dhigayo nooga dhigay oo nalasku eegayo inaan adduunyada ayada ilaah ka dhigano iyo inaan rabbi subxaana wa tacaala inta ilaah ka dhigano aan adduunyada u adeegsano waxa alla raali nooga noqonayo subxaana wa tacaala taas ayaa la kala eegaya arrintaas ayada ayaa la kala caddaanaysa wayna muuqanaysaa haddaba qof walbo islaam oo rabbigaa ka baq war rabbigaa ka baqoo diinta ilaali war yaan xaqa la fududaysanin oo yaan xaaraanta la qaadanin ee allaha laga baqo subxaana wa tacaala adduunka ka cabsada ha ku fidnoobinina dhallalaalkooda iska ilaaliya adduunka dumarka ha ku fidnoobinina oo dumarka diin la-aan ha dhiginina ee dumarka diinta bara oo tarabiyeeya oo mas-uuliyaddooda si wanaagsan u ilaaliya oo gabadha ha safrinina maxram la-aan ee walaalkeeda u mas-uul ka noqo oo aabbaheeda u mas-uul ka noqo oo dadka ayadaa la dhasho mas-uul ka noqo idil oo waxaa laydinka doonayaa gabadha inaad ilaalisaan maanta dumarkii in badan oo kamida diintii bay doonayaan maxram la-aan inay safraan ma rabaan in ay waxay doonayaan ay si diiniya u noolaadaan ehelkoodii ayaa kula dagaalamaya waxay odhanayaanna waxaad sheegaysaa waa diin cusub ee waxa kan lama arki jirin axadkii loo malaynaya inuu diinta bartana waxau odhanayaa xaaraan markay ku tiraahdo waxa kan lama ogola iska dayno laa ba'sa ilaa baktigii oo dhan oo laa ba'sa magac la yidhaha gaaray wax walbo xaaraana lasoo qaata laha ba'sa dhibaata kuma sugna maxaa ka macnaa adduunyo le weeyaane maxay saasan aha waxaan iska day waxba maahane waa iska daruure xaaraan walba waa iska daruura war naftiina adkeeyo rabbi ka baqda subxaana wa tacaala godkii khandaq marka la godayay sida ku sugan saxiixa bukhaari waxaa dhacday rasuulka sala allahu alayh wasalam calooshiisa in dhagax ku xiraa sow jaabir caddaynayo dhagax baa calooshiisa ku xiraa dhagax marka baahi aawadeed dadka halkaa godka ka badayo oo dhanna ma aysan cunin ma qalaynin ma quraacanin ma casaynin hal qof oo wax cuna haysa ma jirin rasuulka jaabir baa ka idan dalbaday inuu gurgiisa aado waa la garanaya inuu cunto yar u sameeyey bal haddaba u fiirso waa khayru khalqillaah ba adduunka caloosha dhagax uga xirtay say caloosha ugu adkaato ee uu isugu taagi karo salaada alle iyo waajibaadka jihaad bay ku jiraan calooshaana dhagaxyo ugu xihan yihiin wax ay cunaan bay la-yihiin cadow ayayna la dagaalamayaan rabbi subxaanahu wa tacaala miyuu ma ogyahay maya waa imtixaan waana la eegayaa hadday ku dulqaataanna ilaahay wanaag buu ugu badalayaa markay dhibka noocaasa u dulqaateen oysan diinta alle ka tegin xaaraanna aysan dhex gelin ee xaqa sidaa ku difaaceen asxaabu rasuulillaah waxay noqdeen kuwa madaxa caalamka oo dhan waxay noqdeen kuwa aqniye ah waxay noqdeen adduunkao dhan kuwa gacanta ku dhigay dadkao dhan oo soo hoos galoo laga haydaysto amarkooda ayaa fulay maamulkooda ayaa socday xooggooda ayaa muuqday dhaqaalahooda ayaa meel kasta yiilay oo ka muuqanayay sharaftooda ayaa caalam ku arkay adduunkao dhan baa u khuduucoo soo hoos galay gaaladoo dhan baa isu dhiibtay kuwa uwadda sheegan jiraa keligood ka baqday haddaba waxay ku gaareen waa cabsida alleh rabbi dadkii ka baqaa laga baqaa qofkii rabbi ka baqana cadowga oo dhan inta midoobo ayay leeyihin aan qofkaa iska celino aan la dagaalano waayo haddaad rabbigaa ka cabsatid axad kasta oo aan diin lahayn markuu ku argaawadu ku maqlo waa argagaxaya markaasuu isleeyahy intuusan ku soo gaaraysa qofka nagu dishaa diliddana ilaah baa u taliya oo hal mar qaada laakiin balaaya dadka aan diinta lahayn bay haysataa ama adduunyaduba ilaah u tahay waxayna ku haysataa silinka markay waayaan way argagaxaan qof muslima oo diinka hadlaya markay maqlaanna way naxaan xaaraanta marka lasoo qaatana way gubaan oo xaaraanta warkeeda la sheego oo la yidhaha waxaan waa xaaraam weeye lama ogola way gubtaan
waayo waxay leeyihin maxaa baktigeena loo sheegaya ceebteena banaanka loo soo dhigaya sidaa darteed ay ka xanaaqayaan akhilmuslimi wa uktalmuslima cuquusha waxay tahay runta ah oo caqli leh qofkii nafsadiisa xisaaba oo camal fala waxaa geeri ka dambeeya waxaa dulli iyo doqonnimo ku dhacday axadkii hawadiisa raaca hididiisana ilaah waa gafuuru raxiim iloobana allah waa shadiid alciqaab dulli oo dhan qofkaas ayuu ku dhacay rabbi subxaanahu watacaala ayaan weydiisanaynaa inuusan nagu darin dadka iska hididiisa waxay gacanta ku hayaan ayadoon la arkin rasuulka sala allahu calayh wasalam isagoo xabiidu dunya caayaya waxau yihi adduunyada addoommadeeda ta'isa cabdu diinaari wadirham waalqadiifati waalkhamiisa in ucdiya radiya wain lam yucda sakis salawaatu llahi wasalaamu calayh waa xadiis bukhaari ku sugan hadalka rasuulka eeg waxaa hoogay oo dulloobay oo balaayas ku dhacday diinaarka iyo dirhamka addoonkooda iyo marada weyn oo qadiifada la yidhaha iyo midda faraqsan qofka iskala qadiifada dan la goglado iyo kamiisada marada faraqsan iyo waxaa haddii la siiyo raalli bau noqonayaa haddaan la siino waa caroonayaa buu yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh maanta dadka ku sifoobay fara badanaa ta'isa cabdu diinaar wa dirham aad bay u fara badan yihiin aad bay u fara badan yihiin cabdu diinaar wa dirham imisaa ku jeclaanaysa markaad shilimaad siisid imisaa ku jeclaanaysa markaad dharka gabal u iibisid haddaad wax sii weydo ku caroonayo oo ku lacnadayo oo bakiil ku ogoonsanayo mid ha khayr lahayn haddaad xoolo bixisasa derbiyada ayay ammaantaada ku sheegayaan bal adduunka dadka ku nool u fiirso ta'isa cabdu diinaari wadirham waalqadiifati waalkhamiisa dadka maanta joogaa sidaas ayay u badan yihiin agsarkooda waa nooca ilaa inaan loo naxariista maahan oo afraad yar ah inta kale waa cabdu diinaar wadirham maanta wiil iyo gabar baa isguursanaya gurga laysugu imaan maayo haddaan qadiifado iyo maryo kala dhaldhalaalaya lagu soo xirin oo waxay u bateen dumarkii cabdulkhamiisa waalqadiifa saasay u bateen waa siday u bateen maxaa yeelay waxay leeyihiin gurga maxaa yaala oo la dhigay daahyada lagu xirisay u yaalin kuraastii dibiyada ahayd oo jinnigu ku fariisan jiray ma taallaa qadiifadihii shaydaanku isku guursan jiray ma la soo dhigay haye saasay odhanayaan wax kala ma odhanayaan cajaa'ibta jirtay kamid tahay reerka gabadha bixinayaa inta reer gabar laga guursado ilaa afraad yaro rabbi unaxariisa maane waa cabdu diinaar waa dirham maxay ka odhanayaan war imise boqoloo kun baad na siinin war gabadheenna maxaad u dhigin war intaasoo kunoo gabaatiyaa loo baahan yahay war habeenka curuuska intaabaa la cunaa awa gabaridii lagu soo wareegi lahaa haye sow dadkii cabdudiinaar wa dirham waalkhamiisa ma noqon haddii la siiyo shilimaadkii la keeno oo gurgii la dhaldhalaaliyo gawaarixa awasayaadiin wadda meesha la keeno oo boqolaal lacaga oo gabaadkii lagu magacaabo lagu dhiibo raalli bay wada noqonayaan gabadha iyo reerka iyo deriska iyo dadkao idiba saaxiibada waxaana loo ogoonsanayaa nin raga ilbaxa ogoonyahana oo khatar ah haddii xoolihii la bixi waayo waxaa la leeyahay gabadheenu saas ugu raacmayo way wada caroonin inantii ka bilaaba dadka dhan usailay ilaa la yidhahdo anigu diyaaruma mana guursanayo wa rabbi maa ka baqataa subxaana wa tacaala maantaad waxaad isku qadaridaan ay shilimaad noqdeen sharcigiinuna ou noqday shilin ma hayaa qofku iyo qoladou ka dhashay oo sharciguunu noqon waayey iyo waxaad wax ku doonteen diin maleeyay akhlaaqdiisu sama qaymo badan tahay rabbi guurkiina dulliga uu ka dhigay mid aan lagu noolaan karin buuna alla ka dhigay subxaana wa tacaala rabbi subxaana wa tacaala wajacala baynakum mawaddatan waraxma ayuu guurka ugu talagalay wajacala baynakum cadaawatan walbagdaad aad ku bedelateen sababtu waxa weeyaan waxa aad isku qadarideen akhlaaq iyo islaamnimo ma ahayn ee waxa weeyaan waa qoladee reerkayga ma ka dhashay imisou salxa heli karaa iyo gurga u yaallaa soo u yaallaa low ay noqon lahayd guurka waxaa laysku doortaa diinta soo ku yahay akhlaaqda islaamigaasa soo uyo ma akhlaaq fiican yahay rabbi subxaana wa tacaala mawadda iyo raxmaw dadka dhex dhigi lahaa waana ay liibaani lahaayeen dulligana way ka bixi lahayd xaqiiqadu saas wey marka rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala alla badanaa cabdudiinaar wa dirham war xadiidka maxaa ka cajaa'ib badan amaanba iska daynaa mawduuca ka hadalkiisa oon xadiidka keliya ku gaabsano cabdudiinaar wadirham waalqadiifati waalkhamiisa in ucdiyaa radaya wa in lam yucda lam yarda warkii ku dhalay ayaan ka raalli noqonayn haddaadan wax siinin oo kan kula dhashaan raalli noqonayn haddaadan wax siinin oo kaan saaxiibka tiin baan raalli noqonayn haddaadan wax siinin oo labada isu dhaxlaan raalli noqonayn haddaan wax laysiin oo kuwa isdhalaan raalli noqonayn haddaan wax laysiin war waxa laysku wataa maanta waa shilimaadka iyo xoogaha qofka in laga helayo xoogaha xaaraana haddii laga gurto qofka oo meel ka shaqeeya laaluus ou ka qaato ama dadweynaha xoolahooda ou ka dhaco qofka sidaas hadduu jiro qabiilkiisa way jeclaan gurgiisana waa la odlahaan hebel waa nin fiicano qaaraanka si fiican u dhiibaa reerkana waa masruufa ayaa la oranaya lama oranayo wuxuu ku masruufaa waa maxay xalaal miya xaaraan miya laisweydiin maayo
gabadhaydii baa banaanka u dhoofto lacag bay soo dirtay hooyada odhanaysa iyo odaga xaaraan miyay kusoo shaqaysa mase xalaal ay lama odhanayo. wiilkaydaa hindiya aadaa la odhanaya daroogo miyuu u doonay mise diin buu kasoo kororsanaya la odhan maayo ee waa aadoo lacag buu keenay keliya way arrintu wax walba oo lacag bay noqdeen oo lacag ma lahaya oon saas arrinta taagantahay war allaha laga bogo subxaana wa tacaala ma habboona sidaas. rasuulka sala allahu alayhi wasalam adduunka qofka inta uga filan isagoo sheegaya waxuu yidhi man asbaxa aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cinda wuquutu yawmi kaanamaa xiisan lahu dunya bixadaasiiriha. tirmidi ayaa sanad wanaagsan ku qoray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxau yidhi axadkii waa beriisa isagoo naftiisa aamin u ah oo jirkiisa la caafiyey oo maalintaa cunto ou cuno ee uu ku qadeeyo agtiisa taalla ama uu ku quraacdo ama uu habeennimada ku casheeyo waaba iyadoo adduunyado idil loo soo jamciyo oon waxba ka maqnayn buu yihi sala allahu alay wasalam wax yarna iyadoo isa ka maqnayn buu lamid wax yar adduunkao dhan isagoo gacanta ku dhigay ayuu lamid yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. waa qofkii naftiisa aamin u ahaa oo jirkiisa la caafiyey oo cunto ou maalintaa cunay agtiisa ay tahay. adduunkao dhan baa loo soo jamciyey wax ka maqano ma jiraan. haddaba walaalayaal rabbi ka baqda oo ogaada diinta islaamku inaysan nagu oranin waxaa wanaag iyo sharaf haysta qofkii intaasoo meelo lacag u taalo, bal waxaa sharaf laga dhigay qofka rabbiga caabudaya wax uu cibaadada ugu xoogaaboo yarna heli karaya cibaadada allena inuu gutaa ay u suuro gasho gudashada cibaadada alle ammaan ku helaya jirkiisuna uu leeyahay caafimaad oo cibaadada kula yimaado wax adduunka ka maqan ma jiraan, wax u dhimano ma jiraan, wax kasta gacantoo ku hayaa nicmoo dhan isagaa gaaray. dadka nicmoo dhan gaaray ee wanaagga qaata ee garta wax kastoo sharaflo inay yihiin diinta alle ku dhaqankeeda rabbi hanagu daro ee liibaana. saad u liibaantaan diinta alla ilaaliya marka alla subxaana wa tacala saa liibaan uga heshan agtiisa. allah subxaana wa tacaala hanagu daro dadka ku liibaana diinta ilaalinteeda. war ha la dadaalo xaqa ha la ilaaliyo oo yaan adduunka daar laga dhiganin. rasuulka sala allahu alayh wasalam waxau yidhi maa lii walidunyaa ilaa ana ka raakib fii dilli shajaratin uma raaxa wa tarakaha. aniga iyo adduunyada wax naga dhexeeyaa ma jiraan. waxaa lamiday mid daabad saara ee geed hoos ku degay ee galabnimada ka caraabo isaga tegaya. adduunka ma rukuub baan saarana maanta ayaan degay oon imid berritana waan ka socdaal ahay meel aan ku nasan rabo, meel aan ku farxi rabo, meel aan ku raaxaysan rabo, meel aan jiifjiifan rabo ma ahan buu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. maxaa yeele maba istaahisho ma noqon karta addunyada galmacaas meel lagu nasto ma noqon karta adduunyada. meel raaxa iyo deganaan loogu talagalana ma ahan. ka socdaal baa laga yahay ka socdaana la kuleyay war ka dhaqaaq daartatan adduunyada daar maahan daartatan ka saal qaata ilaa qofka rukuubka saaran raashinkiisa iyo biyihiisa yar buu sitaa. raashinkiina iyo biyihiina yaro xagga idinku anfacaya diyaarsada waa cibaadada alle. tirmidi ayaa sanad wanaagsan ku qoray war dadku caafimaadka iyo firaaqada kama faa'iidaystaan ee muslimiinta ka faa'iidaysta. war dhallinyaronimada lagama faa'iidaystana ka faa'iidaysta. war caafimaadka lagama faa'iidaystana ka faa'iidaysta. war xoolaha la heli kara lagama faa'iidaystana ka faa'iidaysta. war firaaqada lagama faa'iidaystana ka faa'iidaysta. waray nolosha ka faa'iidaysta. xayaatada inta idinku jirta ka faa'iidaysta. war adduunyadu waa mataacun quruur. war faraxeedu ma daa'im noqdo. war waa qofka hurdaya waxau ku calwasaadoo kale adduunyadu. imise qofooday ka qosliday markay ka qosliday ka gadaalna ay ka ooyiday. imise qofooday ka farxiday adduunyadu markay ka farxiday ka gadaalna ay ka tiiraanyaysay. imise qofood ayay dhaldhalaan iyo daara tustay oo markay tustay ka gadaalna ay daacad uga dhaqaaqday. war adduunyadu waa bilo oo marba nin bay bilin oy sara u qaadi markay meelaha aagayso oy baacbaacayso bay dhulka uga wareegaysaa ee rabbigiinka baqda subxaana wa tacaala. war qofka muslimka adduunku adduunyadu waa mid sumaysan sun weeye ayada dhan sideeda ahaan. suntaas ayadaana waxaa ka fakada qofka kitaabka alle dhaqan ka dhigta oo carabkiisa digriga alla ku badiya. imise aayadood baa adduunyada cayday. war adduunka isaga tag oo ku saahid dhexdeeda. war rabbiga ku qalqay nicmada oo kuu diyaariyey oo aakhirada doon oo diinta alla u shaqeey aada liibaantid mar kastabe. war qofkaan adduunyada noloshiisa ku saahidin oo aan adduunka intuu ku nooliyey aan aakhirada u shaqaysan aakhira markuu tago ayuu shallaayaa. maalin aan shallay wax tagayn ayuu calacalaa. maalin aan calacalo u qabanin ayuu cadaabka alle ka dhexsan karaa. axadka muslimka oo adduunka markaad joogtid xasillooni ku soco oo rabbigaa si sugan u caabud. geerida ha halmaamin. mawdku waa maqan yahay laakiin wou imaanayaa. sidaa darteed geerida ha halmaamin. waxaa laabudda yawman min alayaam geeridu inay kula kulmayso. sidaa darteed uhbo iyo raashin diyaarso
maalinta aad dhimanayso u diyaarso iyo wixii ka dambeeya raashinkaad diyaarsanaysaa camalka taqwada ha noqdo hanimayso cumrigu intuu kuu joogo oo aan cimrigaagu dhammaanin ka hor adiga iyo hawada faraha badan baan idiin kala digin cimrigu waa dhammaanayaa asbaabtiisu waa maxduud hadda ayuuna tegayaa geeriduna maalin walba way soo dhowaanaysaa ee adiga iyo hawada faraha badan baan idiin kala digin qofkii oo muslimkaa diintaada hanuunka badan ilaali oo ku dhaqan lacalla haddaad diinta si wanaagsan u ilaalisay inuu ilaahay khaatimadaada khayr ka dhiga ayaa la arkaa ee sidaa deel oo qofkii o islaamka u dadaal ha halmaamin aakhirada ha halmaamin qabriga iyo meesha ciriiriga badan leh ha halmaamin siraadka iyo waxa ka dambeeye dhibka badan leh qofka muslimkaa waxaa la doonayaa inuu kulansado isdhiibidda rabbi iyo raacitaanka nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo ku shukrinta rabbigii ou si dhaba ugu shukriyo hala dadaalo allaha laga boqo subxaanahu wa tacaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qad aflaxa man aslama wa rusiqa kafaafan waqanacahu allahu bima aataa waxaa liibaanay qofkii muslim laga dhigo oo qadru kifaaye lagu arsugo ee wixii la siiyey ku qanaaco qaata kaasi waa liibaanay haddii ilaahay ou muslim kaa dhigo diinta ku hogaamiyo qadru kifaaye aad ku noolaatid lagu siiyo inaad ku qanaaco qaadatina lagugu arsugo war wax kuu dhiman oo nicmaha uma jiraan ee qofka muslimka u ka faa'iidaysto oo rabbigaa ka baq subxaanahu wa tacaala ninka adduunyadiisa jeclaadaa aakhiradiisa wou dhibaa ninka adduunyadiisa daba ordaa aakhirada wow iloobaa aakhirada ninka iloobaa tawbada ayou iloobaa tawbada qofka iloobaana khaatamo xumo inuu ku dhinto waa halis yahay marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala rasuulku waxau ku yidhi xadiid ku sugan muslim addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir war adduunyadu waa qofka mu'minkaa xabsiga uu ku jiro waana gaalka jannadiisa qofka mu'minkaa si kastow raaxa ugu hela adduunka xabsiga u yahay gaalkana si kastow ciriiri ugu jiro jannay u tahay maxaa yeelay qofka mu'minkaa waxa ka horreeya wanaaga marka la eego xabsi qofku jiro ayuu iska yahay qofka gaalkaana cadaabka ka horreeya marka la eego wax kastoo adduunka kusoo gaara wax ugu jira janna iyo waa raaxisanayaa cadaab iyo dhibaata agtiisa ma taalo baxda maa qofkaasi ou yahay qof isagu yani gaal ah raaxa adduunka raaxa u yahay mu'minkana xabsi bay adduunyadu u tahay sidaa darteed adduunka haddii xabsigeenna lagu sheego usan qayba noolahayn yaanan waxba israacsiinin xadiidkii qad aflaxa man aslama ahaa muslim ayaa wariyey kan hadda haynana muslim baa soo saaray war adduunyada qofka hamigiisa iyo murugtiisa ay noqoto rabbi baa amarkiisa kala geeya faqrigiisana indhaha usoo hordhiga adduunkana intii loo qoray in aan hayn ugama timaado axadkii aakhirada ka fekera rabbi baa danihiisa soo kulmiya qalbiga ayaana hodantinimo loo geliyaa adduunka oo doonaya ayaana u yimaada ee muslimiinta u dadaalo rabbigiin ka baqoo xagga ilaaliya ha ku kadsoominina daarta adduunyada ma ahan meel wanaagsan oo lagu noolaan doono ee haddaba qofka insaanka ogow adduunka martibaad ku tahay waqti dhowna waad ka guuri doontaa war maalka iyo ahalka iyo dadku waa ammaano laguu dhiibtay ammaanada laguu dhiibtana maalin dhow waa lagaa qaadan doonaa ee rabbigaa ka baq subxaanahu wa tacaala qofka muslimkaa rabbigaa ka baq war sidee baad yeeli doontaa maalinta ay noqon doonto wejiyaalka gabal inay caddaadaan gabalna ay madoobaanayaan maxaad samayn doontaa seed yeeli doontaa maalinta warqadihii wax laysugu qoray dadka la sii doonoo loo odhanayo fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiini fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ahadkii kitaabkiisa xasanaadka midigta laga siiyo waxaa la xisaabi doonaa xisaab yar oo fudud ehelkiisa ayuuna u laabanayaa isagoo faraxsan oo laga farxiyey wa amaa man uutiya kitaabahu bishimaali fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya ba u fiirso waxuu odhan doona ahadkii kitaabkiisii laga siiyey dhinaca bidixda waxuu odhanayaa sallay baa ii sugnaaday ogaadaan la-aaneena waxa kitaab yahay maxay ogeysiiyey ogaadaan la-aaneena waxa xisaab yahay maxaa xisaabi baray acmaasha marka la miisaami doono xasanaadkaagu inuu fududaan doono iyo inuu cuslaad doono ma kala ogide say xaaladaada noqon doontaa rabbi waxau leeyahay fa amaa man taqulat mawaasiinu fahuwa fii ciishatin raadiya wa amaa man khafat mawaasiinu fa ummuhu haawiya wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya miisaankiisu qofka cuslaado xasanaadka waa kaasoo nolol laga raalliya oo ku noolya laakiin qofka miisaankiisa xasanaadka oo fududaado hooyadii waa haawiye waana naar kulayl badan war haddaba see la yeeli doonaa war walaalayaal hays dhiganina war adduunku waa meel dhib badan war aakhirada ha loo shaqaysto war cadaab adag baana sugaya war waxaad ogaataan walaalayaal in qubuurta nala ka soo bixinayo oo rabbulcaalamiin xaggiisa naloo soo bixinayo annagoo qaaqaawan oo kobala oo kali ah axad annaga naga midana shay micigiisa ahaaday ma jiroon camalkiisa ahayn
عمل كيس أنا هين أحد والباوح عمل فلو ما أنت عندها ساريا وما نين جهنم اللي سوه قابين أيوه أو تضباط تنكر أو حرق أيلادها وما أنتوا قال لي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى واربعوك في الجسد أدونك الله قرابين أيوه ودكا دكا الله قد أيوه وجهنم أيضا الله وضل كين أيوه الإنسان كوما أنت وحقرنا أيوه وترسلك حديث صحيح كوير يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك ثم يجرونها وحاول تضباط كل هجان بيلاده هجان كسنة تضباط كل ملك بحيرة وعلينيسا وحديث صحيح قصرا جهنم سلاة أيام لكينيا marka maalinta ay sidaa dhici doonto ma yaadan garanay ma u shaqaysatid ma rabbiga ka baqatid ma adduunkan aad daartay aad degaysa ka dhigatay iska dhigay oo diinta alla saytay u ilaalisid war qof walba dadaal oo rabbiga ka baq subhanahu wa ta'ala warseel ahaad doontaan xaaladda waad ogaan doontaan qubuurtiina markaa ka soo baxdaan adinkoo ooman oo awdka nabiga dadka gabal ay u arooraan gabalna ay loo diido maantaas ayaad xaqiiqada ogaan doontaan oo qof walba uu jahannaba dul marayo axad walba rabbigii ha ka baqo diinta islaamkana ha ilaaliyo xaqana siduu yahay ugu socdo اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا وسيئات أعمالنا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية غسلنا ولا إلى النار مصيرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الملك يا قادرا على كل شيء يا مجيب دعوة المضر إذا دعاك يا أرحم الراحمين فرج عنا ما نحن فيه من الضيق اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مسرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أقدم دولة الإسلام على وجه الأرض كلها واجعلنا سببا لها اللهم انصر المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض اللهم انصر المجاهدين في كل بقعة من بقاع الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مادة يوحى إلى ديارسي مكتبة الهدى sidoo kale maktabatul huda waxaad ka heli kartaan kutubta ajnadaha albumada quraanka tafasiirta ahadiithta muhaadaraadka maqal iyo muuqaalba maktabatul huda waxay ku taalaa kasoo horjeedka masjidka Abubakar Sidiiq 6 Street ee xaafadda Islii Nairobi Kenya wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaan maktabatul huda telephone number eber 25222 ama PO Box 1240 eber 1 Nairobi Kenya